asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa weli horey waxaan uga soo hadalnay arrimihii ku saabsanaa social mediaha iyo telefoonada iyo aababka siday u fududeeyaan inay sirtaada bannaanka u baxdo ama ay dad kale ay faraha u gasho. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda ay leedahay iyo waxyaabaha privacyga la yidhaahdo, sababta ay muhiim u leedahay. dhowr siyaabood baan rabnaa inaan ka soo qaadano. waxaa iska dhici karta marka in qaarkeen ay yidhaahdaan wax oo ii qarsoon ma jiro, wax hadda sharci darrena kuma jiri, wax ceebana hadda faraha kulama jiro, sidaa daraaddeed wax badan oo aan qariyo ma jiraan. marka informationkayga haddii dadka ogaadaan waxba kuma jabna. maahmaha soomaaliyeed ayaa waxay leedahay hadal intuu afkaaga ku jiro ayuu ammaanadaada yahay. marka maahmahda ulajeedadeedu waxa weeyaan ay ka hadlaysaa wixii aadan rabin in ay dadka kaa ogaadaan, waxaa iska fiican inay adiga kugu koobnaadaan. maxaa yeelay mar hadday afkaaga ka baxaan ama gacantaada ka baxaan ma soo celin kartid meeshii ay aadayen, adiga markaa ma xukuntid ayaa laga wadaa. privacygu xuquuq oo dadku ilaahay siiyey weeyaan, siyaabo badanna muhiim way u tahay. siyaabaha marka ay muhiimka u tahay waxaan ka soo qaadanaynaa saan sheegnay dhowr. midda koowaad waa inay xadido ama ay xakamayso awoodda ama gacan sarrayn ay dad kale kugu yeeshaan, hadday ahaan lahayd dowladda, hadday ahaan lahayd ajensiyo kale sida ajinsiyada aad u shaqaysid. waxaa wanaagsan in markaa shakhsiyadaada gaarka ah ee adiga kugu egta. ayamahan dambe waxaa soo kordhay dadka isticmaala social mediada in wax badan laga ogaado shakhsiyadooda iyo waxay ku sugan yihiin, waxay aaminsan yihiin oo dhan la ogaado. marka haddii fikradaada siyaasadeed, waxaad siyaasad ahaan aad aaminsan tahay iyo waxa niyadda kugu jira ay markaa ogaadaan dad kale oo kambaniga aad u shaqaysid oo kale ay ogaadaan, lagana yaabo markaa dadka aad u shaqaysid adiga inay kaa fikrad duwan yihiin, waxaa dhici karta inay shaqada markaas ay kaa eryaan, baa dhici karta shaqada aad ku weydid meeshaas. sidoo kale dowladda hadday rabaan inay ku baaraan, waxaa dhici karta inay ma aragtay dadaal badan iyagoo aan kaga bixin iska kaasoo qabtaan oo wixii lagugu soo cadeyn lahaa oo markhaati loo raadin lahaa adigii ay public aad horey uga dhigtay markaas ay u fududaynayso. bishii janaayo january 6deedii dalka maraykanka waxaa ka dhacay mudaaharaad oo lagu mudaaharaaday ee baarlamaanka maraykanka maalintii ay ansixinayeen doorashada ay sharciyeynayeen. waa maalintii ku dhawaaqi lahaayeen in Joe Biden uu helay codadkii uuna madaxweynihii maaragtay la dhaarin lahaa noqon doono. maalintii u fariisanayeen ay u fadhiyeen bishii 6deedii ayaa waxaa isku soo baxay dad fara badan oo taageersanaa Donald Trump, isagaana kusoo dhiirigeliyey inay yimaadaan oo ay mudaaharaadaan. marka mudaaharaadkii kuma ekaan, waxa ay weerar ku qaadeen dhismihii baarlamaanka ayay galeen, waxyaabo badan oo khasaare ayay geysteen, ilaa ay xataa dad ay ku dhinteen ilaa 4 qof. dadka xataa ku dhintay waxaa ka mid ahaa askartii ilaalinaysay dhismaha. marka isku daygaas oo ay isku dayeen inay qulqulateeyaan, ay rabshaan dowladdii iyo baarlamaankii ay isku dayeen darteed, waxaa markaa lagu ansixiyey in ma aragtay dadkaas la soo qabqabto oo macnaha dembi inay galeen baa la caddeeyey. marka FBI-da ayaa waxay markaa isku dayday inay dadkii soo qabato. intooda badan waxay isticmaalayeen social mediada. marka kuwii ugu horreeyey oo la qabtay waxay ahaayeen dadka Facebook live-ka soo galay ama Twitter-ka geliyey ama maaragtay sawirre iska qaadqaaday, iyadoo kaamirooyinkii iyo telefoonadii caadiga ahaa ay usii dheer yihiin. horta kuwii ugu horreeyey oo iyagoo live soo galay magacooda iyo adresskooda iyo meeshay degan yihiin wax badan kuma qaadan, guryahooda loogu tagay oo lagu soo xirxir. maxaa yeelay waxaa fududeeyey maaragtay social media ayaa fududeeyey dembigii marka ay galeen, iyagaa markhaati isaga noqday, iyagaa istuubay, saa daraaddeed waa la soo qabtay. saas marka waxaad ka garanaysaa informationka bannaanka iska yaalla inuu haddii loo baahdo adiga lagu isticmaali karo in lagugu qabto. midda labaad oo ay muhiimka u tahay privacyga waxa weeyaan waxa la yidhaahdo respectiga ama xishmada, sababtoo ah waxay ka turjumaysaa xushmad la xushmeynayo qof kasta oo annaga naga mid ah wixii markaa isaga u sir ah oo uusan rabin in dadka ka ogaadaan inaan lagu xadgudbin. haddii uu qofku markaa codsado iyo haddaana codsanba, arrimihiisa gaarka ah in qofka loo daayo waxay keenaysaa markaa in qofkii uu si comfortable uu ku noolaado. soomaalida inteeda badan waxaad moodaa in ay ku adag tahay arrintan fahamkeeda. maxaa yeelay dhaqanka soomaalida waxaa ka mid a in informationka la wadaago oo wax walba la isu sheego, waxyaabaha xasaasiga ah oo hoose in la isku sheego. qof walba uu kaaga warramo familkiisa hoose iyo waxaa maaragtay ka dhexeeyey waalidkii iyo xataa maaragtay xaaskiisa iyo ama ninkeeda ay kaaga waranto, taasoo iyagu ay u arkaan wax isku soo dhawaansho keenayo oo maalan kalsooni ayay u arkaan iyo saaxiibtinimo ayay u arkaan. marka haddii uu qofku uu sir badan kuu sheego waxay ka turjumaysaa iyaga inuu aad iyo aad kuugu dhow yahay, ninkan uu ehel kula yahay ama uu saaxiib kula yahay. hadduu kaa qarsadana in uusan kugu kalsoonayn, marka wax u dhexeeya ma laha, xishmad oo u dhexaysa ma laha. waxaa iska dhici karta marmarka qaarkood oo in badan aan arkay dadka Soomaalida ah aad bay ugu fiican yihiin inay soo booqdaan, especially markii qofku xanuunsado in cusbitaalada lagu soo booqdo oo eheladii ay soo booqdaan asxaabtii. marmara waxaa dhacaysa marka in
qofkii qolka ku jira isbitaalka ku jira in ma aragtay dhakhtarkii ama qolihii caafimaadka intay usoo galaan ay isku dayaan inay u waramaan ay uga waramaan dhiigii laga qaaday iyo baaritaankii la sameynayay iyo wixii inay uga waramaan dadkii oo dhanna waxaa laga yaabaa inay meeshii taagan yihiin marka dhaqaatiirta xoogaa marmarka qaarkood culays badan ayay ku tahay because dhaqanka soomaalida ayaa ka duwan kooda haddii xataa ay kusoo gaarin iyadoo arrinta laga hadlayo waxaa dhici karta inay ku weydiiyaan maadaama ay kusoo booqdeen ay ku yidhahdaan noo sheeg waxa dhacay maxaa lagaa helay soo qofkii waxaa dhici karta inuu ka xishoodo in uu wixii cudur ahaa oo laga helay inuu u gudbiyo dadkii inuu ka xishoodo ayaa dhici karta saas daraaddeed aad iyo aad ayay marka culays ayuu qofkii dareemaya waxaa wanaagsan marka in qofka la siiyo nafis la siiyo oo haddii aad ilaahay dartiis ku soo booqatay booqashadaadii aadan ma aragtay ku hadlaynin inaad qofkii sirtiisii aadna sii ogaatid wixii ani marka aan ku qusayn inaad faraha ka qaadid ayaa wanaagsan taas ayaa marka respectigana waa qayb ka mid ah oo ay muhiim u tahay midda saddexaad oo marka muhiimka ka dhigaysa ayaa waxay tahay waxyaabaha loo yaqaano reputationka maaragtay qofka waxa laga aaminsan yahay privacygu waxay xakameynaysaa waxa laga aaminsan yahay waxa laga aaminsan yahay wax gacanteena ku jiro oo aan xukumi karna ma aha dadku waxay rabaan bay ka aamini karaan laakiin waxay saameyn ku yeelanaysaa waxa laga aaminayo waxay yihiin haddii fursado aad heli lahayd haddii ama shaqo aad heli lahayd ama dad aad rabtid inaad xiriir la yeelato ama xataa gurigaaga adiga iyo ehelkaaga adiga iyo maaragtay xaaskaaga ayay saameyn ku yeelan kartaa haddii wax xun inta lagaa sheego ay dadka ka aaminaan marka waxay noqon karaan wax been ah oo lagaa sameeyey lagaa been abuurtay ay noqon karaan waxay kaloo noqon karaan wax runa oo adiga aad aaminsan tahay kaa fakadayna way noqon karaan so labadaba ma wanaagsana in sumcadaadii ay ku burburto hadal kaa tegey run ha ahaado ama been ha ahaadee bini aadankana intooda badan waxay judgmentigooda wuxuu ku salaysan yahay si aan cadaalad aan ku salaysnayn marka wax kastoo aad tirahdid waxaa laga yaaba inay kasoo qaadaan ama ay maaragtay u fahmaan meeshii ugu xumeyd inay u fahmaan hadalkaagii ay bedelaan taasaa marka iyadana ay muhiim u tahay inaad is ilaalisid midda afaraad oo muhiimka ka dhigaysa privacyga waxa weeyaan in ay xad u sameynaysa adiga iyo dadka kale waxaa muhiim ah in markaa loo sameeyo wax xad loo sameeyo qofku personal spaceka wax loo yaqaano hadday noqon lahayd physical oo inuu qofka kuu soo dhawaado aad kugu soo dhawaado iyo hadday noqon lahayd ma aragtay mid informational ah oo adiga informationkaagii inuu kula wadaago waxaa loo baahan yahay in aan xadkaas aan ilaalino wixii adiga ku gooniga ahna gooniha inay ku ahaadaan wixii ma aragtay aadan shaqo ku lahaynna aadan sii dabagelin waxaa jiro hadal ingiriisi ah oo aad iyo aad caan u ah oo la yidhaahdo none of your business wax kaa galay ma jiraan ama afaarahayga ka bax hadalkaa markaa haddaad fiirsid wuxuu u eg yahay hadal canaada oo xanaaq ku jiro oo qofkii qofku uu laakiin macno badan ayuu xambaarsan yahay wuxuu ka turjumayaa uu hadal ku saabsan yahay ma aragtay war waxa adiga aadan shaqo ku lahayn dee shaqo kuma lihin maxaa yeelay labada dhinacna way noqon kartaa wixii adiga aadan shaqo ku lahaynna ha weydiinin wax adiga aan dadka u baahnayn oo ifarahooda aan ahayn iyagana ha gaarsiinayso marka qof raba inuu ogaado arrimahaaga oo waqti u haya ma jiro adigana in kaagii la ogaado ma rabtid marka labada dhinacba way noqonaysaa erey kale waxaa jira oo la yidhahdo too much information oo iska dhaqan mararka qaarkood ay dadka intay adoon si fiican u aqoon meel isugu timaadeen ama suuq isku aragteen iska salaantaan iyo wax badan ay kuu sheegaan waxaa la yidhaha too much information marka waa inaad ogaataa informationkaaga xasaasiga ah cid u baahan ma leh haddaad marka si lacag la-aana oo free aad ku sii daysidna waxaa dhici karta inuu meel kale oo adiga aad hadhow raalli ka hayn inuu gaaro si markaa adigana lagu xushmeeyo waa inaad dadka xushmaysid ayaa fiican arrintaa waxaa fiican marka in la xadeeyo wixii informationkaaga ah waxaa ku jirto maaragtay xushmad oo sidaan sheegnay labada dhinaca midda shanaada oo ay muhiimka u tahay privacygu waxa weeyaan in ay xoojiso waxa loo yaqaano trustiga ama aaminida bulshada dhexdooda bulshada markaasaad la socotaan waxay ka koobnaan kartaa adiga iyo familkaaga iyo dadkaad la shaqaysid dhakhtarkaaga lawyerkaaga waxaasoo dhan waxa ay aad isku aamintaan waa in privacygaaga ay ilaaliyaan haddii dhakhtarkaaga uu suuqa geeyo wax kastoo lagaa helo adiga qof jeclaan lahaa ma jiro shakhsi kastoo annaga naga mid ahna waxaa laga yaabaa in arrimo ay iska haystaan xagga sharciga ah in dacwooyin ku socdaan in waxaa laga yaabaa xanuuno uu hayaan oo uu daawo u raadinayo waxaasoo dhan arrimo iska xasaasiya oo isaga inay ku koobnaadaan ku fiican weeyaan haddii markaa waxaa informationka xasaasiga uu bannaanka aado waxaa laga yaabaa aaminaadii lays aamini lahaa meesha inay ka baxdo oo dadkii ay dhaqaatiirtii ama looyaradii ay markaa aamini waayaan